shirkadda dhismayaasha Amana Anka oo ka mid ah shirkadaha waaweyn ee ka howlgala Somaliland isla markaana labadii sano u dambeeyay ka waday magaalada Ceerigaabo dhismaha masjid jaamaca Ceerigaabo kaasoo dib u habeyn iyo casriyeyn ay ka waday shirkadu oo maanta soo gabagaboobay ayaa waxa munaasabadii furitaanka masjidkan kadib sharaxaad ka bixiyay dhismaha masjidka iyo adeegyada kale ee shirkadu ka fuliso gobolada Somaliland gudoomiyaha guud ee shirkadda Xamse Farax Geedi مساجد نورته مساجد كواد أفرتيس أدنى أما أفرت جهاب اللي يقول رجيا نجاح عد قروح بدن عانك كنت هاي سوماليلاند نشر مساجد كورية وانفلا يروح الصومالية إنه كسر يسوي هاي وأفرت على عمرته نجاح كله قدر كيس هو لحد سنتي لما تم نجاح عدا يا أفرتن كله ودبره ما كان عنده طريقة رنتي لو بقول سنوات إن أنا بعرف عسوا باهنن وحري بيرينه بيرش كانوا شركة عانوا تلاقي لما كانوا لسه كاسميني سلاسوية وحنا تلاقي لي أو أنا رنتي دورينا غالبا كريسة والبلارن دونتا إن شاء الله مساج كاسوه هنا قاعد دونا أفر طبقة قدام بقى لسه كانوا تلاقي لي استراكشر هم مركلا يعني مجتمع الصوماليلاند ملك استوى شوغان مجتمع كلا الصوماليات وحنا ولا ديارنا هاي مشخلونا يكسن وبلع له وحنا ولا ديارنا هاي بسميال تالية له وحنا ولا ديارنا هاي شغالات الشباب وعارك صار رنتي هربه يجتاجن ومشروع عاصر رنتي تضرب كيلومتر وشرع عاصمة الصوماليلاند sida qurux badan loogu hirgeliyay ragga professionalka runtii hareerayga taagan oo haysanaa waxa iyaguna halkaasi ka hadlay maayirka degmada Ceerigaabo Ismaaciil Xaaji Nuur gudoomiyaha gobolka Sanaag Maxamed Axmed Tiimbaro iyo xubno kale oo dhamaantoodba ka marakacay in shirkadda Amana Anka dhismaha ay ka fulisay gobolka Sanaag uu yahay kii ugu tayada wanaagsanaa wada qiraya inuu yahay masaajidkii ugu qurux badnaa arladii deegaan Soomaaliya oo dhan waxaan kaloo mahadnaqayaa shirkadaas si fiican ee quruxda badan ee masaajidka u dhistay shirkadda Amana ka oo inoo dhistay inoo tixgelisay oo injineer ka ahayd masaajidka jaamaceena aad baan ugu mahadnaqayaa qabri Afriqiyeed laftigeedu la shaqaysayna aad baan ugu mahadnaqayaa waxaan u mahadnaqaynaa shirkadda Amana ka ee dhistay masjidkan oo sidii ay ahayd uga soo baxday waxaan leenahay Allah idin barakeeyo خير الله يديسيو ميزانك حسناتكم هذه قدروا ويعيد اسمه عرقامنا إن شاء الله تعالى كل يوم نخصينا ونحسنان دورنا مجلس كاساو الاستين في قروح بدن وهاجر لهانا أيو الاستين ميزانك كلمتنا هالكوني ما هدنقينو أمانة كاه شركة دي قعنتنا لهاي وحين لنا هاي قعنتنا الله يدين بركيو قعنتنا الله يدين بركيو مساعد قروح بدن بارنو الاستين قعنتنا الله يدين بركيو wixii dhismaha nusdaw Ismaaciil sheegay xaq ay ka yimaadana waanu idin ka warhayn doonaa waana nuurtan Allah idin nuur wasiirka wasaaradda diinta iyo waqaafta Somaliland Sheikh Khaliil Cabdullaahi Axmed oo isaguna halkaasi ka hadlay ayaa dhankiisa ku amaanay shirkadda Amana Anka dhismahan tayada leh ay ka fulisay gobolka Sanaag dib loo dhisay aad loo qurxiyay sharaf iyo qiimo lagu yeelay una soo kordhiyay degmada Ceerigaabo gaar ahaan caasimadda maxaan ku radaa Ceerigaabo waxa runtii ka muuqata shaqo hufan oo dad Somaliland darsi ay qabteen shirkado runtii lagu xasun karo wax qabadkeeda Ceerigaabo way dhismaysaa wata muuqata fooqbeeno afar fooq ay muuqda waxaan rajaynayaa in ka badan inay ka bilaabanto insha Allah barakada masaajidka dartii waxaan oran lahaa sida gudoomiye iyo laba gudoomiye sheegeen gobol iyo heer degmaba ee ka warhaysaan shirkadda Amana ka xaq bay u yeelatay waxa kale ugu mahadnaqaystay sheegay warbixintoodii oo Amana Ilowdin in ay tababareen shaqaale xirfadlayaal oo runtii muddadii 2 sano ee mashruuca socday dadkii wax ka bartay waa jaamacado kulliyad 2 sano Yuusuf Cabdi Xasan Cabdi telefishinka caalamiga Universal magaalada Ceerigaabo